dunida kubadda cagta waxaa jira sheekooyin jacayl oo badan laakiin midna ma gaari karto sheekada Mauro Icardi iyo Wanda Nara sheeka ay ka buuxaan saaxiibtinimo khiyaano magac iyo waalid jacayla mar uu ahaa xidig dhalinyaro ah oo ka soo ifbaxay kooxda Sampdoria ee Talyaaniga Mauro Icardi wuxuu saaxiib dhow la ahaa weeraryahankii kale ee reer Argentine Maxi Lopez waxay ahaayeen sidii walaalo oo kale ilaa ay wax kasta isbedeleen Maxi Lopez ayaa qabay gabar caan ah oo lagu magacaabo Wanda Nara taasoo ahayd model iyo shakhsi u shaqeeya telefishin caan ah waxay sidoo kale ahayd hooyada dhowr carruur ah oo ay u dhashay Maxi Lopez laakiin gudaha gurigooda waxyaabo qarsoon ayaa ka socday sanadkii 2013 warbaahinta ayaa qarxisay sir weyn Wanda waa ay ka tagtay Maxi Lopez waxayna u guurtay saaxiibkiisa Mauro Icardi dunida kubadda cagta ayaa afka furatay Maxi Lopezna waa uu niyad jabay wuxuu dareemay in saaxiibkiisii ugu dhowaa uu dhabarka ka toogtay warkuna waxa uu noqday khiyaanadii qarniga ugu dambayn Wanda Nara waxay si rasmi ah uga tagtay Maxi Lopez waxaana la sheegay in ninkeeda cusub uu noqon doono Mauro Icardi qarixii ugu weynaa ee sheekadan ayaana yimid markii Sampdoria ay la ciyaartay Inter Milan Maxi Lopez waxa uu diiday inuu gacan qaado Mauro Icardi oo u ciyaaraya Inter Milan ciyaartaasina waxaa lagu naynaasaa Wanda Derby Mauro Icardi ayaa salaantii laga diiday kaga jawaabay 2 gool iyo dabaaldeg indhaha dadka gubay dadka qaar waxay u arkayeen geesi jacaylkiisa dartiis u dagaalamaya qaar kalena waxay u arkayeen khiyaanoole indha adag sanadkii 2014 Mauro Icardi iyo Wanda ayaa isguursaday laakiin Wanda ma noqon kaliya xaaskiisa ee waxay noqotay wakiilkiisa rasmiga ah waxayna noqdeen lamaano wadaaga ganacsi iyo guulaba iyadoo oo Wanda ay maamusho Icardi wuxuu noqday kabtanka Inter Milan heshiisyo waaweyn ayuuna sidaasi ku galay laakiin jacaylkoodu wuxuu noqday mid dhibaato joogto ah leh kala tagyo leh dib isu follow garayn Instagram-ka iyo mar kale aan followba ay wadato doodo fagaare ayaa dhacay xitaa warar ku saabsan khiyaano ayaa ruxay guurkooda maanta Mauro Icardi iyo Wanda Nara weli warbaahinta ayay ka muuqdaan marna waa ay kala tagaan marna waa isku soo laabtaan laakiin arrinta caddaanka ayaa ah in jacaylkoodu uu yahay midaan caadi ahayn dadkuna ma fahmaan laakiin kani waa jacaylkeennii ayuu yidhi markii ugu dambaysay Mauro Icardi Mauro Icardi iyo Wanda Nara waxaan ku sheegi karnaa sheekadooda jacayl ku dhashay fawdo ku koray garoomada kuna socda qalbi furan iyo muran joogta sheekada jacayl ee ugu waalan kubadda cagta wali ma dhammaan dadka qaar ayaa aaminsan in waayihii iftiimayay iyo tayadii cajiibka ahayd ee Mauro Icardi aysan ka dambayn khiyaanadii uu kula kacay saaxiibkiisa marna walaalkiisa ka dhigtay ee Maxi Lopez waxaana uu sidaasi ku lumiyay tayadiisa haatanna waxa uu ku dambeeyaa dalka Turkiga kooxda Galatasaray oo uusan ka haysan boos joogta xulka qarankiisa waxa uu ciyaaray 8 kulan oo kaliya taasina waxay u muuqataa khiyaanoolihii aan liibaanin